بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته maadaama aynu weli ramadaan ku jirno waxaynu wax ka odhan doonaa kelimaad kooban qur-aanka kariimka ah suurad ka mid ah alfaatixa ugu horeyn ilaahay subxaanaه wa tacaala kitaabka qur-aanka wuxuu inoogu soo dejiyey inaynu nolosha ku saxanno sidaa awgeed baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab kitaabun anzalnaahu ilayk ilahay wuxuu leeyay waa kitaab aanu ku soo dejinnay waa kitaab barakaysan baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala barako ku dhantay dadku wixii barako ku saabsiisan ay ka helayaan waa mar labaada ilaahay wuxuu leeyay waxaan u soo dejinnay liyadabbaruu aayaatihi inay dhugtaan oo u fiirsadaan oo fahmaan oo daymoodaan oo gartaan ilaahay aayaadkiisa inta ugu badan le innagu waxaynu u isticmaalnaa qur-aanka inaynu ajar ku raadsanno ka barakaysanno haddaba waxay idhahdaan qur-aanku waa kitaabka dunida loogu akhris badan yahay waxaa dunida bug yaalla waa bugga loogu akhris badan yahay waayo haddaynan cid kaleba eegin dee dunida inta tukataa maalin kasta 7 jeer bay faatixada akhridaa haddaad tidhaahdo 2 bilyan ee muslimkaa nus baa tukada haddaad tidhaahdo ama 500 baa tukada haddaad tidhaahdo 517 ku dhufo waa almost 8 bilyan oo jeer baa la akhriyaa faatixada weeyaan maalintii markaynu ka nimaadno qur-aankii kale la akhrinayo tirada badnaa idan waxaa la yidhaahdaa waxay idhahdaan kutubta matbuuca kitaabada dowru nashri ay soo saaraan injiilka ugu badan bay idhahdaan oo 2,000 oo luqo in ku dhadhow ku qoran laakiin waxaa la yidhahdaa kitaab la akhriyo waxa ugu badan qur-aanka haddana maca alasaf bacd alculamaaba haddana waxay idhaahdaan waa kitaabka loogu faham daran yahay kitaab dad oo dhamme akhrinayo haddana iyadaan la fahamsanayn la akhrinayo waa mid cajab qabta markaa haddaad qur-aanka kaloo dhan ka timaaddo faatixadu qof kasta oo muslima oo qaangaadha waajib bay ku tahy ilaa salaad buu tukanayahay sacaynkaa maaha qof kasta oo muslim oo qaangaadha faatixadu waajib bay ku tahy waana la arkaa qof kasta oo muslimi markaasi inuu ugu yaraan 5 salaadood hadduu tukado inuu 17 jeer u akhriyo intee faatixada fahamsan markaa iya waxay ka hadlayso suurat alfaatixa muslimiinta haddaynu maanta dhex marno nidhaahno war faatixada ayaa macnaheeda garanaya intaad u malaynaysaabaa faatixada macnaheeda garanaysa idan waa kitaabka looguna akhris badan yahay looguna faham daran yahay su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay ilaahayna wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala waxaan u soo dejiyey in la akhriyo ma aha oo keliya liyadabbaruu aayaatihi baa ilahay yidhi waliyatadakara ulul albaab ilaahay gaala iyo munaafiqiin buu ceebeynaya waxaa la leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin akfaaluha kuwa iimaanka laga helayna waxaa leeyahay aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih ulaa'ika yu'minuuna bihi baa ilahay ku tilmaamaya idan ayuha alaxiba waxaan isku dayaya inaynu war kooban ka nidhaahno bal suuraddan ilaahay inugu waajibiyey maxay ka warramaysaa qof kasta oo muslima ilaahay wuxuu leeyahay tuko qof kasta oo muslimana waxaa la yidhi salaadaadu asixi mayso haddaanad faatixada akhrinin waa inaad faatixada akhridaa faatixadan ilaahay uu inugu addoonsaday maxay ka warramaysaa baa isweydiin le markaa ma fahamnay waxay sida ma garannay ilaahay faatixada wuxuu u doortay inay noqoto umu lkitaab ama faatixatu lkitaab
kitaabka qur-aanka ah inay bilowga u noqotaa ilaahay u doorto faatixadaasi waxaynu odhan karnaa waa qur'aankoo mujmala qur-aankoo duuduub ah inta dambe ee qur-aanka o dhammi waa tafsiil bay culammadu yidhaahdaan waxa uu qur-aanku ka warramo oo dhan faatixaa sida qofka faatixada gartay ilaahay kitaabkiisii wuu gartay risaaladiina wuu fahmay wixii ilaahay uga dan lahaana wuu gartay si taasi ay u dhacda baa ilaahayna yidhi war maalin kasta akhriyo ku celceli si aad aniga warkayga u fahamto ninkii faatixada garan waayana waa warmoog wax badan kama oga wixii rabbi faray sida awgeed ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa acdam suura ilaahay uu soo dejiya waa faatixada acdam suura qur-aankaba suuradda ugu weyn 114 suuradood oo qur-aanka ah waxa ugu weyn faatixa ugu weyn saa daraaddeed buu xadiidka saxiixa ku yaalla ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saciid ibnu lmucalla saxaabiga la yidhaahdo masaajidku tukanaya buu u yeedhay isagoo salaad ku jira ayuu u yeedhay dabeetana salaaddii buu iska wata markii uu salaadda ka baxay buu yimi wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam miyaanan kuu yeedhin maxaad ii aqbali weyday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo salaad baan ku jiray oo miyaanad maqal buu yidhi in ilaahay ku yidhi istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum sunnada salaad sunnaa buu ku jiray salaadda sunnaa waa laga baxaya haddoo nebigaa la aqbalaya nebiga daayo waalidkaa looga baxaya haddii adigoo salaad sunnaa ku jira hooyadaa hebelow ku tidhaahdo waa inaad hee tidhaahdaa waa waajib hooyadaa inaad adeecda ama abaha u jawaabtaa waa waajib kanaad waddaana waa sunne faralka se looga bixi maayo waxaa ka waajibsan waajibka hooye markaa waajibkii alla subxaana wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigan wuxuu ku leeyahay haddaan kuu yeedhay maxaad iigu iman weyday dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa salaad baan ku jiray miyaad maqal buu yidhi in ilaahay yidhi istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum ilaah iyo rasuul aqbala hadday idiin yeedhaan miyaad maqal dabeetana saxaabigii nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war makuu baraa acdam suura في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد قرآن كسورة وين مكو برابوكو يري انت هاند مساجد ككبحين دبيت أنا قعنتو يغبطي بو يري مركي أن ربنا ينام بحنو أيام كو يري إلهي رسول كيسيو سعودي بو يري قرآن كسورة وين مكو برا يا انت ينام بحين نبي وحكو عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الحمد لله رب العالمين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما إلهي وحن كسيني نبي محمد توضبط صون نغضاه هي قرآن كوين وفاتح هذا يدو مكلة شوقا إلهي أقوم النشيغان يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر آيات كمكي كتيرة وحن كسيني با إلهي لي سبع المثاني dabeetana nebigu wuxuu yidhi sabculmahaaniga ilaahay sheegaya qur'aanka weyni waa faatixada idan xadiidkaasi imaam albukhaari uu warinayay iyo kayrkiiba acdam suura fi kitaab illaahi waa faatixa ma garanay markaa acdam suura waxay ka warramayso haddaynu acdam suura fahmi kari weyno dee malaa inta kalena xoogu fahmi mayno waxaa kuugu filan ما قرآن كقري وينت مايا وأعظم وحي أوحاه الله إلى الأنبياء جميعا وحي بوحي النبي يا أنبياء كه الرئيس بكو سودكي وحي بإنتي سودكتي فاتحة وقوين سيدنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب صحابي اللي ورنشري أيوه النبي يقول كيف تقرأ في الصلاة صاد وأخرضه فقرأ أم القرآن دبتنا فاتحة وأخري دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام حكوري والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الذي أعطيته نبي عليه الصلاة والسلام حكوري
ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye towraad laguma soo dejin iyo injiil iyo zabuur iyo furqaantoona wax la mid ah suurad ka weyni ma soo deginba wixii kitaab soo degayay waxyiga ku qoran ee xagga alle ka yimi faatixada ugu weyn iyada ah buu nabigu yidhi sabca almathani iyo qur'aan alcadiim baa iyada ah haddaba haddii ay tahay qur-aanka ilaahay soo dejiyey sida labada xadiis sheegayaan ama waxyigii soo degayba suuraddii ugu weynayd ee rabbi uu keeno subxaanahu wa tacaala bale iyada malag khaasa loo soo dhiibay albaab gaarana loo furay ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحاوت المام يا يسوع جبريل فرد ayuu jibriil sanqadh maqlay dabeetana wuxuu uhi waa albaab ka mid ah cirka oo la furay weligii hore looma furina maanta qura la furay malag baa ka soo degay buu yidhi weligii aan hore dhulka u iman idan faatixadu markay dhulka imanaysay wafdi gaaraa wadatay jibriil oo qura muu soo qaadine waxa keenay malag aan dhulkaba hore u imanin dabeetana abshir binuurayni uutiitahumaa buu yidhi laba nuur oo lagu siiyey ku bushaarayso lam yu'tahumaa nebiyun qablak adiga hortaa nebi ka mid aan la siinin labadan nuur ee nebi maxamed oo qura la siiyey aan ambiyadii hore helini maxay yihin faatixatu alkitaab wa khawaatimu suurati albaqara lan taqra bixarfin minha ilaa ucطiita مسلم baa xadiidka wariyeysana kan xadiidkaa sheegaya malag gaari inuu siday faatixada iyo aayaadka ugu dambeeya suuraة الbaqra aamana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmuؤminuun aayaadkaasi u dambeeya ee uu nebigu ku tilmaamay ninka habeen akhriya ka fataah inay ku filantay uu nebigu sheegay malag gaaraha la soo degay haddaba faatixadaasi sidaa axaadiista nebigu u tilmaamtay ilaahayna sidaa u maamuusay malaggaa gaarka iyo waftiga gaari sideen asmaada tirada badan leh alimaam alqurطubi fii tafsiiri 12 magac buu soo aroorinaya waa faatixada la yidhaahdo اlkitaab sabc اlmathani alruqya alshaafiya alshifaa alwaafiya alkaafiya alasaas alxamdu yacni 12 magac buu soo aroorinaya oo inta badan adile u keenaya haddaba su-aasha aan rabno inaynu maanta isweydiinaa waxay tahy waxyigii ugu weynaa taariikhda nebinimadaba intii nebi un ilaahay soo dirayay waxyigii ugu weynaa ee la soo diraa muxuu ka warramayaa ma u tadaburray qur-aanka kaleba haddaynu ku tadaburi kari weynay faatixadaasoo qura ma ku tadaburray faatixadaa ilaahay inoogu doortay inay noqoto wasiilat اlmunaajaah qaabkaynu ilaahay ula xidhiidhayno ee uu nebigu leeyay laa salaata liman lam yaqra' biumi اlkitaab aw bifaatixati اlkitaab xadiiskii saxiixayn ku yaallay salaad ma leh ninka aan akrinini suuradda tani macaanida qur-aanka oo dhan bay sidaa saa awgeed bay culammadu waxay dhahdeen diinta usuusheeda iyo furuucdeedaba wax ka mid ay sidaa caqiiday ka warramaysaa oo cibaaday ka warramaysaa oo tashriic bay ka warramaysaa oo aliimaan bilbacthi bay ka warramaysaa oo sifaat illaahi alxusnaa bay ka warramaysaa oo ilaahay in cibaadada lagu gaar yeelo iyo isticaanaday ka warramaysaa oo ilaahay in la baryaabay ka warramaysaa oo hanuunka in rabbi la weydiistaabay ka warramaysaa oo ariiqa saxaabay ka warramaysaa oo turuqa baatilka abay ka warramaysaa wuxuu qofku noloshiisa u baahnaay oo dhan
suuraddaa yar ee koobanba ka warramaysa laakiin waa maxay waa haddaynu si fiican u fahmno suuradda tan saddexda aayadood ee ugu horeeya haddii aynu idhaahno bisanku ka mid maaha ama haddaynu bisankana ku darro afarta aayadood ee ugu horeeyaaba waxay ka warramayaan ilaahay weynidiisa subxaanahu wa tacaala idan nisfu suura waxay sheegaysaa qofka muslimka inuu rabbigii weyneeyo inuu rabbigii xuso oo weyneeyo oo muxuu ku weyneynayaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alxamdu ammaan iyo mahad iyo bogaadin dhammaanteed xamdigu waa eray macno ballaadhan leh kelimatu shukrigu ka macno ballaadhan yahay waayo shukrigu waa markaad nicamka hesho laakiin xamdigu mar walba alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu الصaalixaat markaad nicmada hesho waa la yidhaahdaa dhibtu markay dhacdana alxamdu lilaahi calaa kulli xaal baa la yidhahda ilaahay huwa almaxmuudu bisifaatihi wa bikamaalihi waxaa lagu mahadiyaa asmaadiisa iyo dhammaystirankiisa iyo afcaashiisa oo dhan ayaa ilaahay lagu mahadiyaa idan xamdigu waana mahadnaq waana ammaanid waa hanaa ammaan ilaahay subxaanaه wa tacaala aad ku ammaanayso biasmaa'ihi اlxusna saa daraaddeed ba qofka muslimkaa waxaa la yidhi warkaaga waxaad ku bilaabataa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ilaahay subxaanaه wa tacaala lafdu اljalaala buu soo horaysiiyey oo masأalaة اluluhiya wاlcubuudiya tilmaamaysa dabeetana waxaa lagu xigsiiyey lafdu الrububiya oo tilmaamaysa maxay mas'alada rabbinimada iyo sayid اlkown inuu yahay dabeetana waxaa lagu xigsiiyey shay min asmaa'ihi wa sifaatihi oo ah الraxmaan الraxiim towxiid dhammaantii baa ilaahay ku tilmaamay alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh ilaahaasoo ah rabbi اlcaalamiin rab huwa sayid اlmalik اlmudabbir waa ka waxanta ee maamula ee wax abuura ee sifaadkaas oo dhan iska leh qofka mu'minkii markuu ilaahay is hortaago wuxuu leeyahy ilaah waxaan qirayaa keli in lagugu caabudo dunidan aan dhex joogana inaad adigu leedahay oo maamushid ka warran markuu ka baxo hadduu yidhaahdo qolo kalaa maamusha alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin markaasaa waxaad leedahay haddana alraxmaan الraxiim ilaahu aada maamushide naxariis baad kula dhaqantaa wax walba adaa ah maxay raxmaan الraxiima adduun iyo aakhiraba ka naxariista ka naxariistiisu ballaadhan tahay gaarna tahay bilmu'miniina ra'uuf raxiim raxmaan الdunya waraxmaan اlaakhira ilahay waa ka naxariistiisu ballaadhantay aakhira iyo adduun ba naxariista dunida gaal iyo muslimba wuu u naxariistay waa min raxmatihi inuu caafimaad siiyey oo cunaysiiyey nooleeyeyba ka mid a naxariis gaaruu sii bixiyaa oo iimaanka iyo inta la xidhiidha ah ilaahay subxaanaه wa tacaala waa raxmaan الraxiim baad ku sifaynaysaa waa marka labaad ee waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu isku sifaynaya inuu yahay maxay rabbi اlcaalamiin الرحمن الرحيم kadibna waxaad tilmaamaysaa maxay maliki yowم الdiin ama maliki yowم الdiin almalik waa ka waxanta almalik waa ka boqorka ah qul illaahuma malik اlmulk tuuti اlmulka man tashaa ilaahay kownkan marka koowaad waxaad qiraysaa inuu isagu hanto maalik inuu yahay wixii suninayay waxa aadana cunaya ama ku dhaqmaya ama maamulanaya ama wada wixii rabbi urmiyey waa mar labaadee waxaad qiraysaa inuu isagu maamulo ma laha oo qurho kama tegine waana leeyahay waana maamula huwa almalik huwa asayid waxaad kaloo qiraysaa maaliki yowmi اddiin maalin gaara yowm اljazaa كما تدين تدان الدين أصلا هو الجزاء
maalinta qiyaamana ka hantay inuu yahay bacdi dambe inuu jiro adduunka inta la joogo dad badan baa boqorra sheegta inkasta uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhnas ilasmaa ama magacyo ka ugu liita waa shaahanshaah melikulmuluk kuwa la baxay boqorka boqorrada waa kibir halkii u dambaysay ilaahay unbaa boqorka boqorrada saa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa inaan lala bixi karin aakhiro se ilaahay isagoo adduunkaba leh waxa aakhiro loogu sii sifeeyey aakhiro dee cid magaca sheegataa ma jirto bale cid waxhaysataaba ma jirto laa maalik walaa malik fi laakhira laa maalik adigoo qaawan baa lagu soo saaraya sidii hooyadaa kugu dhashaya oo qaawan oo balagale oo aan waxba sidanin la shay waxaad wadataa ma jirto maantaa waxaa la wada qasay in ilaahay uu haysto cid wax xanataa inaanay jirin waxaad adduunkii yaraa aad ururisay iyo magac iyo maamuus iyo waxaad wadatoo dhammi iyo xoolo iyo wax waliba waa hadheen boqortooyana dee cidi sheegan mayso liman ilmulku lyowm baa ilaahay leeyay lilaahi alwaaxid alqahaar isagaa sheeganaya cid la sheeganaysaa ma jirto sida awgeed baa adduunka dad baaba sheegtaye ilaahay wuxuu isku sifeeyey inuu yahay maaliki yowmi اddiin aw maliki yowmi اddiin maalinta aakhirana ka isagu keligii hanta waxaa rabbi inoo sheegay markaynu ku nidhaahno alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin inuu inoo jawaabayo o odhanayo xamidanii cabdi xamidanii cabdi addoonkaygii baa imahadiyey in rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala addoonkaygii baa i ammaanay xamidanii cabdi الرحمن الرحيم markaad tidhaahdana ilaahay kuu jawaabayo uu leeyahay أثنىa calaya cabdi addoonkaygii baa i ammaanay oo sifaadkayga igu sheegay markaad tidhaahdo maaliki yowmi اddiinna rabbi wuxuu ka odhanaya majadanii cabdi waxa i weyneeyey addoonkaygii baa i weyneeyey baa rabbi ku odhanaya subxaanaه wa tacaala intaa marka aad qirtid ilaahay subxaanaه wa tacaala isna waa kuu jawaabaya wuxuu ku leeyahay addoonkaygii waa i ammaanay waa ii mahadnaqay waa i weyneeyey markaad weedhaha ku hadlayso inaad ilaahay la hadlayso ma rumaysantay mise adigoo suuqa jooga baad akhriyaysa adigoo maqan baad akhriyaysa adigoo aan ogeynba waxaad sheegaysa baad akhriyaysa mise waxaad rumaysantay inaad ilaahay ammaanayso oo la hadlayso oo rabbina kula hadlayo ilaahay baad hor taaganta oo aad ammaanaysaa isna waa kuu jawaabaya subxaanahu wa tacaala waayo saa awgeed baa rabbi wuxuu leeyay qasamtu الصalaaةa baynii wa bayna cabdi ay qasamtu اlfaatixa min asmaa'iha الصalaaة bay culammadu yidhahdaan salaadaan u qeybiya aniga iyo addoonkayga oo markuu weedhahan yidhaahdaba ilaahay subxaanaه wa tacaala saasuu ugu jawaabaya idan suuradda nus ka midi nisfu acdami الsuura maada tatakalam تتكلم عن ثناء الله سبحانه وتعالى وتمجيده وتبجيله إلهي وينينتيسا كورميسا إلهي وينينتيسا إنينا هالمامنا وحكا لا إذن حسوسيه ما تقانين هديتني الصورة دا قرآن كوغوين تهي آيات دا قرآن كوغوين ما تقانين أعظم آية في كتاب الله وآية الكرسي نبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب كيري يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قرآن كهذا حيصون إلهي كتابك سكمدا آية دوغو ورما قرر يسابو كجري الله ورسوله أعلم بك الجواب إلهي الرسول ما قرن يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم وكعلي يا نبي عليه الصلاة والسلام سؤال شيء هذا وبي وكحشون يا نبي محمد هرتي سين علم الشاكتو دبيتنا الصحابة وحا عادة ذا هاي نبي مركو سؤال شيء ويديو inay yidhahdaan ilaahay rasuulkiisa og ta'aduban iyagoo ka adaabsanaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inagoo axaadiistiisa iyo diintiisa iyo kitaabkiisiiba arkayna inaynu ka adaabsanno daayo dhabarkaynu ka tuuraa nebi moxamedna wuxuu laa war maanta ma garanaysaa hadda waxay joogaan carafa ama ciid bay joogaan dhulkan ay joogtaan ma garanaysaa markaasay la yidhaha allahu rasuulu aclam tahaye kadib ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam أعظم آية في كتاب الله وحوي أن الله لا أبي بمركي دم بشيء مركو نبي كعلي أي أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية كرسي قوية
nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu laabta ka garaacay buu wuxuu yidhi layahnika alcilmu abalmundar xadiidka muslim ku yaala idan acdam aaya fi kitaab illahi maxay ka warramaysaa waxay ka warramaysaa rabbi iyo sifaatkiisa bas allahu laa ilaaha ilaa huwa alxay alqayuum haye maxaa ku xiga laa taakhudhu sinatu walaa nawm lahu ma fi الsamaawaati wama fi اlard man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu ma bayna aydihim wama khalfahum walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmih waxa ay ka warramayso oo dhami waa rabbi subxaanahu wa tacaala iyo sifaatkiisi walidalik baa culamada qaarkood waxay yidhaahdaan 15 sifa ku jira aayaddan culamada qaarna waxay yidhahdaan 17 sifa laga dhirinaya wax addoontaba dheh acdam aaya fi kitaab illaahina waxay ka warramaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala iyo ammaantii ma taqaanaa suuradda u dhiganta thuluth lqur'aan 3 meelood marka qur-aanka laga dhiga meel nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 12 saxaabi baa ka warinayoo kala nooca abi darda wuxuu leeyahy ayacjis axadukum an yaqra'a fii leylati thuluth lqur'aan nabigaa nagu yidhi waar midkiin miyuu ka caajisaya maalintii inuu akhriyo qur-aanka thuluthkii 3 dalooloo dalool wa kayfa yaqra wa ilaahay rasuulkiisa see thuluth lqur'aan loo akhri karayaa bay weydiiyeen qaala qul huwa allahu axad yacdilu thuluth alqur'aan buu nabigu yidhi qul huwa allahu axad wuxuu u dhigmaa maxay qur-aanka 3 dalooloo dalool buu u dhigmaa buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam bukhaarina isna wuxuu abi saciid ka warinayaa nin buu maqlay ana rajula samica rajula yaqra qul huwa allahu axad nin baa maqlay nin kale qul huwa allahu axad uu ku celcelinaya waxay yidhaahdaan waa qitaadata bnu nucmaan saamicuna waa abi saciida keen laftiisa ay yidhaahdaan labaduna qaraabay meel ka ahaayeen habeen qul wallo un wada buu maqlay habeen oo dhan akhrinaya dabeetana markii waagu bariyey buu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay nin baan xalayta maqlay qul wallo un wada kaannahu yataqaala mana wuu yaraystay waa la fududaatay ninkan uu qul wallaha ma qur-aanka akhriya qul wallaha muxuu kaga celcelinaya tilmaamaya markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadih inaha latacdilu thuluth alqur'aan qul wallaha aad adigu fudaysatay aad moodayso inuu wax yar akhrinayay wuxuu u dhigmaa buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam thuluth alqur'aan buu u dhigmaa idan ayuha alaxiba ay dhegaysta faatixadii laynagu yidhi muslim oo dhamme ha akhriyaan ee la faray qof kasta inuu ku tukado nuskeed wuxuu ka warramayaa ilaahay ammaantii iyo sheegsheegiisa iyo dikrigii aayadda suuradda qur'aanka ugu weyn hadday acdamu suurataas ahayd acdamu aaya fii kitaab illaahina waxay ka warramaysaa maxay ilaahay ammaantiisa iyo sheegsheegiisa suuradda thuluth lqur'aan lagu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay u dhigantaana qul wallo muxuu ka warramayaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad isna ilaahay buu ka warramaya ilaahay inuu keli yahay asamad ka loo qastiye wax walba xaggiisa loo doonto inuu yahay kaan la dhalin waxna dhalin inuu yahay ka wax u dhigma aanay jirin inuu yahay bay iyana ka warramaysa ilaahay bay iyana ka warramaysa idan qur'aanku wuxuu ka warramayaa weynida ilaahay subxaanahu wa tacaala inteeba haddaba barnaamijkeenna nololeed uu ku jiraa in ilaahay la weyneeyaa haddaad maalin kasta intaad ilaahay is hortaagto 17 jeer aada akhrinayso barnaamijkaaga nololeed intee bay ku jirtaa ilaahay weynidiisu in ilaahay la weyneeyaa intee bay ku jirtaa